Assalaamu calaykum. Maaha arrin qarsoon in wadamo fara badan ay jawaasiis u diraan wadamo ay rabaan inay xoogo ka helaan. Haddaba qaabo fara badan ayay ku wada xiriiri karaan basaasiintaas la diray iyo madaxda ay ka amar qaataan. Laakiin si aan loo ogaan waa in xiriirkaasi noqdaa mid qarsoon oo dawladda la bartilmaameedsanayo aysan ka warhayn. Inta badan fariimaha loo diro basaasiintan ayaa ah qaab qarsoon. Laakiin dawladaha qaarkood ayaa adeegsada idaacado ay dadko dhan maqli karaan si ay fariin ugu diraan basaasiintooda ku sugan wadamada kala gedisan. Fariintaas ayaa waxaa dhageysan kara qof kasta oo raadiyo haysta oo hirarka idaacadaasi wadanka ay ku wajahan tahay jooga. Haddaba sidee ayay ku dhacday in fariin la rabay inay qarsoonaato oo ku socoto basaasiintooda ay idaacadaha ka sii daayaan oo ciddii la basaasayay ay xataa maqli karto? Waxa ay idaacadahani soo shaabaxeen kadib markii Mareykanku qabtay 5 basaasiin ay Kuuba soo dirsatay si ay u basaasaan ururo mucaarad ku ah wadankaas oo ka howlgala gobolka Florida ee Mareykanka. 5taas nin ayaa waxaa la qabtay sanadii 1998. Basaasiintaas ayaa waxa ay xogo ka aruurin jireen urur mucaarad ku ah Kuuba oo diyaarado intay ka kireystaan Mareykanka ayaa waxay waraaqo ku daadin jireen Kuuba. Waraaqahaas ayaa waxaa ku qornaa in laga soo horjeesto dawladda wadankaas. Waxa ay fiirsan jireen mar ay dabayl fiican jirto oo markaa xadka Kuuba meel 10 kiiloomitir u jirta ku daadin jiray waraaqahaas si ay dabayshu ugu kaxayso gudaha wadankaas oo dadka u gaarto. Haddaba 24 Febraayo 1996 ayaa ciidamada cirka ee Kuuba ay soo rideen 2 diyaaradood ay ururkaasi waraaqo ka daadinayeen. Halkaas oo ay ku dhinteen 4 qof oo labadaas diyaaradood la socday. Dadka dhintay oo asalkoodu Kuuba ka soo jeeday mucaaradsanaan xukunka Castro ayaa waxay dhammaantood haysteen dhalashada Mareykanka. Arrintaas oo dhalisay xiisad weyn oo ka dhex dhacday wadamada Mareykanka iyo Kuuba. Laakiin korneel ka tirsanaa ciidamada cirka Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradahaasi ay gudaha u galeen xadbadeedka Kuuba. Haddaba dhacdadaas wixii ka dambeeyay ayaa waxa uu Mareykanku xooga saaray inuu soo qabqabto basaasiinta ay Kuuba soo dirsatay si ay xoga uga helaan mucaaradka dawladooda. Sirdoonka Mareykanka ayaa waxay dabagal ku sameeyeen basaasiintan ka dhex shaqeynayay ururkaas diyaaradaha laga soo riday. 5 nin ayaa loo qabtay in xogaha diyaaradahaas ay u gudbinayeen xukuumadda wadankaas iyaga oo markii la qabtay kadib maxkamad la soo taagay. Waxyaalihii raggan lagu cadeeyay inay basaasiin ahaayeen ayaa waxaa ka mid ahaa dhageysiga iyo inay qoranayeen xoga ay ka heli jireen idaacadaas oo ka soo hadli jiray wadanka Kuuba oo ay nimankaasi si joogto ah ula socon jireen amaradana halkaas laga siin jiray. Idaacadaha noocan ah ayaa Kuuba kaliya aysan isticmaali jirin ee wadamo kale oo badan oo adduunka ka mid ah ayaa isticmaali jiray oo Mareykanka iyo Britain ay ka mid yihiin. Haddaba sidee ayay u shaqeeyaan idaacadahan? Idaacadahan ayaa waxaa la dhahaa numbers station oo qof walba oo idaacad haysta oo mawjadeeda iyo xilliga ay soo gasho yaqaan ayaa dhageysan kara. Laakiin waxaa fahmi kara oo kaliya basaasiinta yaqaana sida loo fasiro. Sababtoo ah idaacadahaasi waxa ay akhrinayaan nambaro kaliya oo nambaradaas waxaa hadal u bedeli kara oo kaliya basaaska yaqaana sidii loo bedeli lahaa. Waa tan xarun la sheegay in Ingiriisku leeyahay oo laga akhrinayo nambaro. Idaacadaas Ingiriisku lahaa ayaa waxaa la sheegay in xarun ciidamada cirka Ingiriisku ku leeyihiin Qobrus ama Cyprus laga soo tabin jiray. Waxa ay soo gali jirtay duhurkii ilaa galabtii bilowga saacad walba min 12 duhurnimo ilaa 4 galabnimo. Waxaa kaloo idaacadahan soo shaacbixiyay mashruuc laga soo arooriyay wax ka badan 150 idaacadood oo luqado kala gedisan ku hadlaya nambaro kaliyana akhrinaya. Idaacadahan ayaa waxa ay faa'iido u yihiin basaasiinta iyo dawladda soo dirsatay maadaama aan la garanayn cidda ay ku socoto iyo macnaha laga wado. Waxaana ka hadli doonaa sida nambaradaasi loogu bedeli karo fariin cad. Idaacadahan sida ay u shaqeeyaan ayaa ah in basaasiinta marka hore la siiyo waraaq ay ku qoran yihiin nambaro. Nambaradaas oo ninka jaasuuska ay haysto marka uu isu fiiriyo nambarada ay idaacadu sheegayso waxa uu fasiri karaa waxa laga rabo inuu sameeyo. Nambaradaas ay idaacadahaasi sheegayaan lama garan karo waxa laga wado oo waxa kaliya garan kara basaaska haysta nambarada lagu fasirayo. Sidaan oo kale ayayna u shaqeeyaan. Marka hore waa inaad taqaanaa alifbeetada luqadda nambaradeeda loo bedelayo xuruufta. Haddaan af Soomaaliga soo qaadano waxa uu ka kooban yahay 21 shibane iyo 5 shaqal. 21 shibane ayaa waxaan siinaynaa nambarada 1 ilaa 21. 5 shaqalna nambaradoodu waa 22 ilaa 26. Intaas marka uu qofku yaqaano waa ay fududahay inuu xarfahaasi lambaro u bedelo. Waxaa la samayn karaa in tusaale ahaan basaas la dirayo nambaradan oo kale la siiyo taasoo u fududeydinaysa inuu fasiro nambarada idaacadda laga sheegayo.
haddaba nambarada basaaska la siiyey ayaa ah kuwo ku meel gaar ah oo muddo kooban kaliya shaqaynaya markaa kadibna la bedelayo. sababtoo ah haddii cidda la basaasayay ay nambaradaas helaan waxa u fududaanaysa inay ogaadaan waxa laga wado nambarada ay idaacaduhu sheegayaan. marka goorta uu ninka jaasuuska ahi maqlo nambarada idaacadda laga sheegayay ayuu qoranayaa, markaa kadibna isbarbar dhigayaa nambaradii uu horay u haystay. tusaale ahaan waxaad ka soo qaadaa in markii hore la siiyey nambarkan inuu soo qaato. idaacaddii markii uu dhegaystayna uu nambarkan ka qortay. waxa uu markaa samaynayaa inuu soo qaato nambaradii uu horay u haystay, hoos dhigana lambaradii uu idaacadda ka maqlay, markaana laba isugu beego, kadibna kala jaro. taasoo keenaysa inay soo baxaan nambaro cusub oo sidaa noqonaya. markaas kadib ayaan nambaradan u bedeli karnaa xuruufta Soomaaliga. annagoo kaashanayna nambaradii aan siinay xuruuftaas ka koobnaa 26ka shibanaha iyo shaqalka isugu jiray. oo 17 waa xarafka ma, 22 waa a, 8 waa sa, 15 waa ka, 22 waa a, 4 waa xa, 14 waa qa, 26aad waa uu, 6duna waa da, 24kana waa i, 21kana waa ya, 23kuna waa e. marka haddii idaacaddaasi qof kala maqlo xarfo uma bedeli karo nambaradaas sababtoo ah halkii xaraf ayaa nambaro kala duwan laga dhigi karaa. tusaale ahaan maskax waxaa ku jirta 2 xarafka a ah, waxaana la rabaa in jawaabta u dambaysa ay noqoto nambarka 22. mar waxaa laga dhigay 27 laga jaray 5, mar kalena waxaa laga dhigay 31 laga jaray 9, oo labadaba jawaabtoodu ay tahay 22, laakiin lambarada la kala jarayay ay kala duwan yihiin. arrintaas ayaa caddaynaysa in qofkii aan haysan nambaradaas lagu fasirayo waxa idaacadda laga sheegayo uusan awood u lahayn inuu ogaado waxa nambaradaas laga wado, taasoo ka dhigtay in iyadoo cid walba oo raadiyo haysta ay dhegaysan karto idaacaddaas haddii mawjadaheedu gaarayaan, laakiin aysan awood u lahayn inay ogaadaan waxa laga wado. intaas ayaa noogu joogo barnaamijkii maanta. intii aan mar dambe kulmi doono nabadgelyo. assalaamu calaykum.